khilaaf kale cidda uu soo kala dhex galay xisbiga maaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waana xeerkii kufsiga ee aan ka hadlay waxa ogtiin ilaa maalintii hore laga hadlay madaxweynuhu mar qura buu cadeynin mowqifkiisa mar qura kabu hadal xeerka waxa la faafintiisu ay soo baxday 1 bishii September ee iminka dhamaatay sidoo sharcigu dhigayna 3 cisho ayaa xeerka lagu faafiyaa markay 3 cisho dhamaadaan xeerkaasi dhaqangal buu noqdaa taa macnaheedu waxa weeye xeerkii kufsiga ee umadu ka qaylisay maanta waa dhaqangal inkastoo aan garanin cidda lagu xukumayo haddana maanta waa dhaqangal xeerkaas arbush badobay waraaqdani ahayd maadaama uu dhaqangal yahay xeerku maanta yuu ka hadli baahayd macnaheedu waxa leeyahay xeerka wax kastoo dhacayaba xeerka ilaa la waayayo oo saaxada laga waayayo kama harayo madaxweynaha waxa la soo jeedinayaa madaxweyne cadde ummadda mowqifkaaga ku dhiiro maxaad u gabanaysaa maxaad marba soo diray ugu soo gabanaysaa buul yaro buul hunguriya cadde mowqifkaaga xeerkani waa xaaraan waa sharci darro dastuurku xadgudub ku yahay diinta islaamku xadgudub ku yahay wax la aqbali karo oo la qaadan karo maaha waxa la isku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shariicadii islaamka ma aha siyaasad xisbiga dhexdiisa ma aha dana gaara ma aha wax kale oo naga dhaxeeya aniga iyo madaxweynuhu ma jiraan waa xeerka uu saxeexay ee uu dhaqan geliyay ayaan hore looga horim imika aan hortaagna oo aanan ogolay awoodeyda markay dhaafto suuratu nuur iyo madaxweynaha isku eegaya suuradda uu ku gafay ee uu ku xadgudbay waa suuratu nuur iyo madaxweynaha isku eegaya balalka iskala soo dhacaan suuratu nuur ma suurada ku halay kari waayo waa suurad ku filan cid kastoo xadgudubta waayo ilaahay hadalkiisii weeye ilaahayna addoon kasta wuu ku filayahay ilaahayna waxaan sheegayaa ummadda waxaa la wado waxaan xisbigeedii loo gelinayo mushkiladda waxaan khilaafka lagu sheegayo hele xisbiga kulmiya iskhilaafsan warbaahinta hadaatiin imikaba way maqlaysaa xisbi kulmiye la yidhaa oo iskhilaafsan ma jira haba yaraatee waa madaxtooyada arrintan madaxtooyada ka socotaa xeerkaasay kusan leedahay waa diintii islaamka waxaan isku haysanaa qaala allaahu iyo qaala daaquutu